بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. كسر دوادا جنال كنا قروح ذا بدن وولاشين ساهر وسور دوادا سهل هذا. الحمد لله رب العالمين. إلهي يا محمد اسكالنا وكل هالكن عوض موضوع إذن وموضوع هذا مهمة إن شاء الله كفائديس وناكسون على قالي عمل كستدين الدافع إذا كتشوفتان. رمضان كريم ما شاء الله. رمضان كريم أوضا وحنو بلا ونيا شن يتوان كدنبه وحوصون قواتوان يلح إلها مهاد اسكال انت كدمنا الله نور لما يستيرو لما انت ان الله نوغو غرسيه سومك كلا سو سودا ان شاء الله كان كيسا كلاتو عافماد قبي بشي برواقو الله نوغو غرسيه walaalahayga qaaliga Soomaaliyeed meel kasta dunida daafaheeda ka joogtaa waan salaamantihiin. soo dhawaada intii hore noola joogtay inta cusub dhammaantiin soo dhawaada walaalaha qaaliga. bismillahir rahmaanir rahiim. dhammaantiin soo dhawaada kuwa hore kuwa dambe insha Allah asxaabta gadaal nooga soo biirta subscribe ka saarsada insha Allah channelka rukunta insha Allah waxaan idin wadaa faa'iidooyin caawimaad ay leedahay سليد صومالي aad cunto ma sha Allah faa'iidada ay leedahay ayaan rabaa inaan ka hadlo wali dul istaago faa'iidooyinka laga helo insha Allah. saliida waa saliida in wada naqaano waatana ma sha Allah tabarakallah waan hayaa saliida wadanka weeyaan waatana ma sha Allah iyada noocan waa hayaa alxamdulillah ilaha mahad iskale. saliidan waxaan la dhahaa maxsar ayaa la dhahaa waa iga sugeysiina u maleynaya marka insha Allah faa'iidooyin badan ayay leedahay lafaha bini'aadanka ayay dhistaa insha Allah xoog ay dadka siisaa waxa kale oo leedahay qofku inuu jirkiisa adkaado mar qofku cuno jirkiisa waa adkaada ma sha Allah waa saliid aad iyo aad u wanaagsan ما شاء الله. وانا نقصه كريه عن شهر الصباح إن شاء الله ويدي أنا قصين كدي دمانتين وحنا نرجعين إن إنهن كلاد عشان تيريهن سليدا عادي يعون أكسنتها إنه هالسية عن شهر القصية وضيع شهر السيست إن شاء الله مع صرتها الله قدروين عنتوين كائن له فيتامين كسيدا قليل دقيرته مع صرده cuntooyinka leh iyo shay waxay ahayd borotiinka lafaha koriya sida qamandiga geedka la yiraahdo oo waxay ahayd asagana aad iyo aad u fiican suxuurta kale aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa sida soorta kale markii lagu darsado insha Allah maxsarada aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay maxsarta iyo soorta markii la isku daro sidoo kale midda kale aad iyo aad ayay u leedahay waxay ahayd fitamiin ay aad iyo aad u leedahay qofka cunay iyo qofka maartay aan la siin isku tabar ma xitaa ilmaha yar markii maxay ahayd la siiyo iyo qofka maxay ahayd aan la siin marka xitaa xoogooda istijaabiyaanin ama waagi hore Soomaalidu waxay deganeed meel oo maxay ahayd banaan sidoo kale tuulooyinka kaleeto marka hadda way degan yihiin dadka qaar marka dhalinyarta marka hooyadii ilmo yar xariiri wiil ayaa waxa hooyadii siin jiray wax kasta canjeero maxay ahayd macsar digir leh adoo wax walba uu cunayo waxay ugu dari jiray macsartaas walow xitaa ay suugada reerkaas ku darsan jireen ma sha Allah waarid aad u fiican bay ahaayeen reerna waxay jeclaayeen sooga marka wana dareemi kareen wadankii qofka soo gacabayay maxay ahayd suuq waa qaali qof oo xoolo haysta ama lacag haysta uma goyn kara marka reerna wax ilmahooda waxay siin jireen soo gacan jira suuq leh cunto kale digirta kale suuq ayaa lagu dari jiray wax walba suuq labadii wiil oo labada cid ka soo kala jiray ayaa maalintii dambe istagaalay waxay isku dagaaleen meel oo banaana kadib meeshii banaankaada ku ciyaalka banooniga dheela kadib cunug yaraayo suuqa cuni jiray maalin kasta sidaas loo qabtaa dhulka laga soo jaraa maalintii dambe hooyadiis u fiirsatay oo dhan maalin kasta suuqa ku siiyay
maxay tahay cilada jirta oo maxay ahayd tooy maalin kasta dhulka lagaga soo jarayo oo maxay ahayd tooy aan cunuga isaga celin leedahay maamadii xanaaqda waxay tiri wayna sirti cunuga yar maxay ahayd macsarada u eg macsartu waa ogtahay sida ogtahay madowda ogtahay waxay ka samaysantahay geed madow weelka lagu shubana waa weel madow ma garateen marka waa inaan ogaanaa waxay hooyadiis wiilkaaga maxaad siisaa bay tiri maama wiilkaaga maxaad siisaa xooggiisa lama leexin karo iska daa anaga ilmaha yare sida hadda u qabatid lafiisa birbaad madaay marka maamada waxay tiri cunugayga macsarta ayaan siiyaa geedkan ayaan siiyaa asaga ayaan wax walba ugu daraa maamadina maalintii ayay garowsatay inay maxay ahayd ilmaheeda sidoo kaga joojiso oo macsarada siiso marka macsartu waxay kaloo leedahay borotiinka lafa korinta fitamiinka qofka cuno oo qofka u keeno ka adag maasha Allah waxay kaloo leedahay qofkii jir dhisan leh jirkiisa had iyo jeer aa dhisan yahay marka waxaan idinku boorin lahaa maamooyinka sharafta leh meel kasta dunida afeeda ka joogtiin inta hadda Yurub joog hadda maanta maasha Allah meel kasta dukaan Soomaaliya ka furan macsaradii u haya meel kasta dukaan Soomaaliya ka furan digirti waa taala meel kasta dukaan Soomaaliya ka furan cuntooyinkeeni digirti wax walba yeelan marka insha Allah saxaabay maxay ahayd hooyinkeena dhalinyarta oo hadda soo kacaya oo qurbaha ku dhashay maxay ahayd inaad ilmihiina macsarada ugu dadaashiin oo idinku cuntiin oo wax weeyaan oo liifada kaleeto way ka sii fiican tahay aad iyo aad ayay uga fiican tahay oo waxa ku jira borotiin badan ayay leedahay geedka macsarta laga sameeyo waa taqaaniin waa geed maasha Allah mida kaleeto waxaa laga helayaa lafa koris lafta hadday jabto ka soo qaad qofka hadday jabto laftu lafaha ay jabaanin ama gacana ka jabo ama lugha ka jabto qofkaas maashi jirkiisa ka mid ah oo jabto ayaa waxaa la siiyaa macsarta haddii la siiyo wax dhakhtar uma baahna ayada ayaa ka weysa mid kale waa jirtaayo maxay ahayd nimanka markii la siiyo maasha Allah tabaarakallah xajiyaasha ayakuna waxay ka helaan xoog borotiin siyaada ah maxay ahayd waxay kaloo ka helaan maxay ahayd cuntooyinka markii loogu daro jimicsi dheeraada waxay keenaan firfircooni maalinta qofka macsar cuno iyo maalinta kale tan isku mid maahan marka insha Allah markasta gurigaaga yaan laga waayin markasta gurigaaga tan saaxiib ka dhigo markasta gurigaaga joogtid ilmahaaga tan u urkumo bahashan macsarta ilmahaaga urkumo markasta xaajigaaga wax siisaysid urkumo naftaada markasta aad cunaysid sheyga koowaad cuntada ku darso markaad tijaabisid asxaabay tasta ka qaad markaad tijaabisiin insha Allah ila soo xiriira hadday noqoto hadda asbuuca dhexdiisa wax iskaga garan weydo aniga ila soo xiriira laakiinse hadda wax iskaga garatiin maasha Allah waa sidii la doonayay marka insha Allah la tijaabiyo wax lagu yaaco macsarta hala badsado la feekrisaa ilmaha u fiican tahay xaajiga u fiican tahay hooyada u fiican tahay dhammaan familiga dhan ayay u fiican tahay waxa way jirkeena la fiheena wixii dhisaya waa loo baahan yahay asal weeyaan leeyahay marka akhyaarteeda sharafta leh meel kasta joogtiin barnaamijyada ku xiran insha Allah muuqaalo badan ayaan idin soo gelin doonaa insha Allah maxay ahayd waxaan kaloo hayaa maxay ahayd cuntooyinkeeni digirti kama maqna soorti sareenti gilidi qamandigi labahaasna mar baynu ka soo hadli doonaa fitamiinka laga helo iyo kuwa ku jiraba iyo kuwa Soomaalida hore u tijaabisay ee ka heshay marka insha Allah maxay ahayd hal ogaado yaana moogaan alaabtan jimileyso gurigaaga geyso xaajigaaga u gey saaxiibta u gey hadiyad uga dhig gashiin uga dhig waa macsaro yaa hamana xalato tadaan bayaa doonaa macsarta alaabtan hala gato halagu yaacay leeyahay insha Allah idii meelaha joogto kale ana hala soo xiriirin
حتى كراتين بنسيدي بيا إن شاء الله هاي لصو حريرين انت نواحي جوجتا أنا waxaan ku noolahay wadanka Jarmalka khaasatan waxaan ku noolahay maxay ahayd magaalada gobolka Saxon laakiinse insha Allah dareeskan xagga ayaan idin soo dhigi doonaa insha Allah waxaa lagu soo yaaca baasha macsaarka dhahan haleela tijaabiyo kala anaga waxaan soo garaneynay familygayga marka insha Allah idinkana inaad soo tijaabisiin ayaan idin rajeynayaa caafimaadka ay leedahayna maxay ahayd ogaatiin insha Allah maxay ahayd waxa kale leedahay dhisan lafa toosin lafta jabto oo maxay ahayd degdeg u kamato qofka hadduu wax tacabo laftaas oo degdeg u kamato hadduu qof laf ka jabto faa'iidooyinka badan ku jira waxa kamid ah xoog laga helo qofku xoogiisa ahna riixi karin oo maartay yaadee korka dhulka laga qaadi karin marka faa'iidooyin badan baa ku jira asxaabtida sharafta leh meel kasta dunida daafaheeda ka joogtaan waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab channelka idinka buuxsamay subscribe-ka like hadaa ka heshiin waxsarada maxay ahayd yaa soo xiriira telefonkeyga xagga hoose ku soo qoray insha Allah ha lagu soo yaaco la jimlaysto waxa waaye mar kasta balanteen waa macsar marka horeysa cuntada tan maxamiisha cuntada maalintii hal litir wayna ka cabtaan sideeda xitaa waa loo cabi karaa sideeda marka waa cabti xitaa borotiin gooni ay leedahay lagu soo yaaco marka insha Allah hadda tijaabiye anagu waa tijaabinay maasha Allah waxbaan iskaga garanay insha Allah maxay ahayd ilmahan cuntada ku siista hooyaan ahay marka insha Allah la tijaabiyo aad iyo aad u wanaagsan tahay maxsaradu waxa weeyaan fitamiin waa borotiin waa alaab laga daba dhacay marka insha Allah asxaabtida qaaliga intii u baahan taneynaysa hoos ayaan telefonkayga idinku soo qoraa insha Allah maxay ahayd iga soo dalbada markasta dunida daafiyada ka joogtiin inkastaba iska taw meel kasta taala misana qofkii u baahan maxay ahayd anaguna waa u diri karaa ki dukaan u dhow yahay dukaanada ka helayeen waa alxamdulillaah rabbil caalamiin tii maxay ahayd meel aan laga helin joogana aniga hay la soo xiriiro telefonkeyga xagga hoose ku reeba insha Allah khiyaartida sharafta leh habeen wanaagsan caweysi wanaagsan ما شاء الله فيديو كان حاول تلاقي إنه هذا محسرة فائدة لهذا هاي وكنا إن شاء الله